xisbiyada mucaaradka ah ee wadani iyo wixii ay shir jaraa'id ay maanta ku qabteen magaalada Hargeysa sharci darro ku tilmaamay muddo kordhin madaxweyne Axmed Siilaan uu sameeyay gudida diiwaangelinta ururada iyo asxaabta oo muddo xiloodkoodii dhamaaday waxaana ay sheegeen inay xaraan tahay muddo kordhintaasi iyaguna carabka ku dhiftay in dadana gaar ah leeyahay dabada ka wadaan wana kuwan mas'uuliyiinta labada xisbi oo amuurtaasi ka hadlaya marka waraysa waxa aynu wada ognahay inaanay markii horeba jirin baahi loo qabay in la abuuro gudida diiwaangelinta iyo kala saaridda ururada inaga oo lahayn commission doorashooyin oo xafiis ka mid ah uu hawsha ku filan lahaa haddii xataa la dhisayo in lagu dhiso gudida dhexdeeda xafiis arinta u qaabilsan ayay ahayd markii dawladdu ay ku adkaysatayna qolooyinka commissionka iyo democratization-ka inaga caawiya dib bay uga wada baxeen oo waxay yiraahdeen waa overlap annagu garan mayno waxa ay kala qabanayaan labadan arrin sababta loo sameeyay iyo cidda sameeysanaysa si fiican baan u garanaynaa oo may ahayn mid dan guud iyo dan qaran midna daaranaysa waxaana idinka tusaale ah dadka loo xushay sharciyadoodu waxay ahayd inay la dhamaato sidii gudidii hore maalinta ay natiijada ku dhawaaqaan laakiin kuwa si ay mushaharka u sii qaataan waxa looga dhigay abaalgud in 2 sanadood dambe ay kirooyinkuna ku socdaan oo kharashyadu isticmaalaan shidaalku ku socdo mushaharkooduna socdo oo runtii aan u baahnayn qaranku waxba annaga nagama qaadi kartaan la shaqayn mayno ma ixtiraamayno ma jiro oo ma aqoonsanin marka hadduu mushahar iska siinayo niman meel iska fadhiya taasina waa dambi ah waddanka xaqdar weeye madaxweynuhu wuxuu qoray waraaq 13 buu leeyahay waxaan u kordhiyay waqtigii ayuu u kordhiyay nin suuqa jooga u kordhiyay ee gudi diiwaangelin uma kordhin sharciyanna waa khalad oo waxa weeyaan gudigaasi de hawshiina way dhamaatay xafiisku oo reeri banaankayba uga baxeenba miisaaniyadii baarlamankuna way ka saareen oo waxay noqotay hay'adihii waqtigu ka dhamaaday ee miisaaniyadii 2014 lagu soo diray baarlamanka loo soo gudbiyay baarlamanku waxay yiraahdeen hay'adaas waqtigu ka dhamaaday hadalkan ka soo yeeray xisbiyada mucaaradka ah ayaa ku soo beegmaya xilli madaxweynaha Soomaaliland Axmed Siilaan uu muddo kordhin hor leh u sameeyay gudida diiwaangelinta ururada iyo asxaabta oo muddo xiloodkoodii dhawaan u dhamaaday maxamed yuusuf bakayle Somsa TV Hargeysa